kuwani waa qaar ka mid ah hablaha agoomaha ah ee ku jira dugsiga Tabantaabo oo ah dugsiga kaliyaata ee u gaarka hablaha agoomaha kuna yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Tiro gaadhaysa 170 hablood oo agooma ah ayaa saaka maamulka dugsigu u qaybiyay dharkii ay ku ciidi lahaayeen maalinta Yawmul Faraxa ee Ciidul Adha, waxaana soo baxsaday deeqdani walaalo muxsiniina oo ku kala sugan dalka dibadiisa iyo gudihiisa. awlaadan yaryar ee ku jira dugsiga Tabantaabo ayaa ka dareen celiyay hadiyadaha loo qaybiyay maanta. rabbil caalamiin halkan waxaan uga mahadcelinayaa macallimiintayda maamulkayga iyo ciidin ciidisay anoo magacaygu yahay Asma Cabdilaahi Jaamac oo dhigta dugsiga Tabantaabo. wallahi maan dareenkayga ma cabiri karo waxaan aad iyo aad baan u faraxsanahay waana ugu mahadcelinayaa Ilaahay misaadka xawsanaadka u saar si wacan bay noo ciidiyeen si wacan baan inooga faraxsiiyeen maalin kastana gacanta way nahayaa macallimiinteeda iyo cid kastaba. Maamo Maryan Caateeye oo ka mid ah mas'uuliyiinta dugsigani Tabantaabo iyo Maamo Faadumo Muuse oo ah maamulaha dugsigani ayaa uga mahadnaqay cid kasta oo ku soo hagaajisay deeqdani. waxaan halkan uga mahadcelinaynaa lacagta laga soo diray Masjid Tawxiid Copenhagen ee uu soo diray Siciid Cabdiraxmaan Cali. lacagtaas oo dhan $157 halkii laga soo saaray Ilaahay khayr ha idinku bedelo. waxay ahayd lacagtaasu tii ciidkii Ramadaan Ciid al-Fitri. Ilaahay baraka idin geliyo camalka kuwii ka shaqeeyay kuwii soo saaray iyo kuwii qaatayba Ilaahay ha u barakeeyo. aniga oo ah Maryan Caateeye oo diriya halka lagu soo hagaajiyay oo ah dugsiga Tabantaabo Orphan Girl School oo ah iskuulka hablaha agoomaha ah. waxa weeye halkan waxaan ka tilmaamayaa xilliyada had iyo jeer iidaha oo kale waxa jirta in ay soo tabaruc ugu keenaan maxaan ku raahdaa ashqaas. marka waxaan halkan ka xusayaa ashqaastii qaar ka mid ah haddana wada xusina waxaan filayaa in raalli laga noqon doono waayo de waa la badan yahay cid wax ugu qabatayna way badan yihiin. Aamina Abubakar Axmed oo joogta markaasi Ingiriiska isla markaana joogta Shafiil joogta waxa ay markaasi soo gaarsiisay 2 jeer ciidii maxaan ku raahdaa ciidii fidrigi iyo ciidan ulxada oo imika ah oo $602 ay soo gaarsiisay Aamini. tii horna filayay inay $100 ahayd haddaan wax ka ilaawanay imika ma xasuusni. marka waxa weeye waxaan uga mahadcelinayaa runtii yani dadka isku hawlaya in ay wuxu dhiibtaan ama wuxu baxsadaan يعني markaasi maxaan ku raahdaa bangiga Allah ay wax dhigtaan runtii aad baan ugu mahadcelinayaa ma sha Allah baan leeyahay Allah idinku barakeeyo anagana iyo carruurtana waana farxiseen Allah idinka farxiyo. ciidkan waxa runtii yani mas'uuliyadda ugu faraha badan la dhiibay oo carruurta ciid siiyay waxa weeyaan inan la yiraahdo maxaan ku raahdaa hoodo dheer isla markaana joogta oo ku nool wadanka Norway. inantaasi yani waxa ay soo dirtay dharka aanu markaasi maanta siinayno baadidiisa dharka ay soo dirtay maxaan ku raahdaa ay kana soo dirtay Norway. Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro iyadoo runtii yani iyadu kaligeeda oo markaasi runtii yani soo xustay carruurta ma sha Allah baan leenahay. maxaan ku raahdaa cibaado Yuusuf Caabina wayna soo gaarsiisay waanaanu ka ajiibnay in ka taynu maanta bixinaynaa baanay ahayd. khayr iyo xasanaad Allah idin siiyo waanu idin mahadcelinaynaa cid kasta ilaa iyo maalintan u bilownay ilaa maalintan ilaa inta dambe nolosheena uu noolnahayba cid kasta runtii yani wax ku darsatana way mahadsan yihiin. ugu dambeyntiina waxa halkaasi loogu qaybiyay dharkii ay ku ciidi lahaayeen tiro gaadhaysa 170 hablood oo wax ka barta dugsiga agoomaha ee Tabantaabo. Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Jookar telefishinka caalamiga Ariel TV Burco.